بسم الله الرحمن الرحيم دمان waxaan salaamay saraakiisha isugu timi shir khamiiseedka oo ka hadlay xaaladda amniga ee gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda in aan xoojino iyo waxyaalihii asbuucan la soo maray ayaan in yar noqdooyin bulshada la wadaagaynaa oo kamid ah arrimaha la rabo in ciidanka booliiska gobolka Nugaal ay qabtaan marka ugu horeysa waxaan bulshada gobolka Nugaal la wadaagaynaa xaaladda guud ee gobolka Nugaal inuu yahay nabadgelyo wax dhibana ka jirin xaaladda nabadgelyadana ay 100% tahay ciidamaduna ay ku jiraan shaqooyinkoodii loogu talagalay waxaan marka hore aad ugu mahadcelinayaa shacab weynaha gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda sida ay noola shaqeeyaan oo ay ciidanka booliiska ula shaqeeyaan gobolka Nugaal waxaan leenahay dhammaan culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo haweenka iyo ganacsatada iyo dhalinyaraduba uga mahadcelinaynaa shaqadii wanaagsaneed oo aan wada haynay inay si laba jibaaraan oo ay waqti ku bixiyaan ciidanka booliiska inay la shaqeeyaan hal aligeed ayaa amnigu inuu ku xaqiijin karo waxaan kaloo bulshada u sheegayaa gaar ahaan caasimadda inay xaafadaha iyo waxa weeye laamaha ay si gaar ah ula shaqeeyaan saldhigyada iyo meelaha roondada dhamaantood waxaan rabnaa in guryaha leerka lagu xiro oo luuqyada iyo wadooyinka mugdiga ah uu guri walba uu leerka shido laambad wax weyn ma yeelayso laakiin waxay keenaysaa amni iyo in la arko cid kasta oo maraysa waxaan bulshada ugu baaqaynaa inay gulubadaas ku xiraan oo leerkaas u shidmo oo amniga qayb ka noqdo oo qof kasta oo maraya iyo cid kasta oo tuuga la helayo waxaan leenahay inay bulshadu ay gacan weyn ka geysato booliiska kula shaqeyso wax kasta oo la arkana ay booliiska la soo xiriiraan waxaan faraynaa ciidamada inay si dhow ula shaqeeyaan bulshada u dhibriyaan nabadgelyadoodana ka shaqeeyaan bulshadana ay si dhow ula shaqeeyaan qaybaheeda kala duwan si aynu noqono gobol ammaana bulsho wada shaqeynaysa meel wada jeeda amnigeenu wuxuu ku xiran yahay wada shaqeynteena dhamaanteen waxaan ka codsanaynaa inay bulshadu say noola shaqeeyaan iyo si ka dhow noola shaqeeyaan ciidankana waxaan faraynaa inay shaqadooda laba jibaaraan dardar geliyaan cid walba amaamirtii la faray ay fuliso iyadoo lagu joogtayn doono cid walbaba shaqaday hayso meesha ka hayso iyo sayoo haysoba lagu jagarayn doono qof kastana laga doonayo waxa laga doonayaa qof kasta oo salli ku xiran 48 saac wax ka badan inuu ku xiraan karin oo sharciga la geynayo ama la sii deynayo oo dambiga lagu waayay intaasba waxaan rabnaa in la dardar geliyo oo bulshaduna ay noqoto qaybta ugu wanaagsan ka qaadato aad iyo aad ayaan u rajaynayaa inay intaasoo wada shaqeysa oo meel wada jeeda in nabadgelyo noqon doonto inay dhinu wada jeensan doonto waxaan fariin yar u dirayaa khamriilayaasha habeenada moodo inay xoogaa dareen kale aan ka arkayo iyo meelaha ay joogaan inay booliisku tallaabo sharci ka qaadaan cid walbana ay ku amran tahay nin khamriila ama cabaya ama sita ama la maqlo inay sharcigu ay soo qabanayaan oo laga rabo inay sharciga keenaan waqti kastana laga doonayo qofkii raba inuu ka waantoobo hadeerba inuu iskaga baxo inuusan hadeerba intaan laamaha ciidanka booliisku soo qaban oo sharciga ku keenin hadeerba yaan lagu arag gaadiidleyda waxaan leeyahay gaadiidkiina yaan layn ka saarin yaan lagu qaban yeysan hadhow aysan sharcigu ma sii deynayo waxaa la keenay sharciga muqaadaraadka oo dhammaystiran gaarigaa laga xukumayaa qofkii sitay baa la xukumayaa qalab kaloo wataa la xukumayaa adiga dhan baa khatar ku gelaya marka waxaan leeyahay odayaasha baabuurta leh oo ganacsatada ah oo waxa weeye baabuurtooda ku shaqeysta in iyaguna si wanaagsan baabuurtooda u ilaaliyaan dhaweeyaha waxaan leeyahay adigana dhaweeyaha waxaan isagana kula dardaarmayaa inuusan qaadin qof khamriilo ah qof la mid ah qof daraagis wata qof xilli xun soconaya qof aan bulshada wax xun inoo soo jiidaya inuu iska ilaaliyo naftiisana ka ilaaliyo hantida wato ka ilaaliyo ummadana uusan hali kale u keenin isaguna inuu iska hubiyo oo jeekimo oo si muwaadinimo ah
oo wadaniyad leh uu ku shaqeeyo baan iyagana ka codsanaynaa oo si dhow ay booliiska ula shaqeeyaan. guruubada oo kala magacyada leh iyagana waxaan ugu baaqayaa saaka laga bilaabo inaysan qof aan la garanayn wuxuu yahay meel uu u socdo inaysan iska soo qaadin, inaysan shilimo iyo waxa weeye kira yar dalkooda dhaafsan iyo dadkooda. iyagana waxaan ka rabnaa inay ilaaliyaan oo aysan gobollada isaga gooshin, oo annaga gobolka iyaga aysan soo gelin, oo la xaqiijin doono qofkii hadda kiis lagu helo oo la daba joogo oo xogtiisu jirto inuusan gaarigiisa iska saarin. isagana waxaan leenahay iska ilaali, ha soo qaadin. ilaahay baa arsaaqaad ku siinaya, wax wanaagsan inaad ka shaqaysaa lagaa doonaya. aad iyo aad u mahadsantihiin.